ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرتنا شرت لي كسو dhawaada kanaalkeena Bar of Ingiriis. maanta waxaan ka hadlaynaa cashirkeeni toddobaad qaybtiisa saddexaad. Cashirka maanta wuxuu xiriir la leeyahay casharadiina hore kala ahaad cashirkeeni toddobaad qaybtiisa koowaad iyo labaad oo aan kaga soo hadalnay possessive pronoun iyo possessive adjective. Maanta waxaan ka hadlaynaa possessive s. intaan cashirkan faafahintiisa guud aan u galin fadlan haddaa ku cusubtahay subscribe, share, like, ha ilaawin si anagana ay noogu noqoto dhiirigelin. sidoo kale ha ilaawin cashirkan haddaa ku cusubtahay cashiradana hore dib inaa ugu laabatid saa usoo fahantid oo usoo gaartid halkaan maantan taagannahay mahadsanid. cashirkeen haddaan ku bilaabo qaybtiisa koowaad waxaa inoogu qoran sida tan af Soomaali ahaan haddaan u bedelno if the noun ends hadduu nounka uu ku dhammaanayo in a singular form qaab singular form ama singular form waxaan ka wadnaa singular noun ama qaab keliya hadduu ku dhammaanayo waxaa gadaal kaga dareynaa s. waxaa gadaal kaga dareynaa s taasna waxaa ka horeyso apostrophe mark. calaamadan waxaa la dhahaa apostrophe mark. if the noun ends hadduu nounkaas uu ku dhammaanayo in a plural form qaab jamac ah we add apostrophe mark. waxaan gadaal kaga dareynaa apostrophe mark. marka plural form nounka kusoo dhammaanaya waan kaga soo hadalnay cashirkeeni koowaad iyo labaad iyo saddexaad aan kaga soo hadlaynay. waxay ku kala dhamaadaan s ama es ama ies ayadoo markaas muxuu ahaa adigoo markaas fiirinaysid xarafka u dambeeya. laakiin noun waxaa jiro jamcooda aanan intaas midna aan ku dhammaanaynin. cashiradayna dambe aan kaga hadli doono insha allah. intaan oo faahfaahsan aan gudagalno. possessive s waa weli waa ficilkii lahaanshaha ahaa. ficilkii lahaanshaha ah shay la leeyahay markaan tilmaamayno. okay, this is Ahmed. kani waa Ahmed. this waa kani. is waa verb to be oo ah ficil ahaansho oo singular noun. Ahmed waa magacii qofka ahaa. this is Ahmed. kani waa Ahmed. who af Soomaali ahaan macna ahaan ereyga ugu dhow af Soomaali waxaa waaye kuma. kuma. who is Ahmed. Ahmed waa kuma. Ahmed waa kuma. who is Ahmed. who waxaa isticmaalnaa markaan weydiinayno qof ama arrin ku saabsan qof ama qof shakhsiyadiisa markaan weydiinayno ama qof kale aan ka wareysanayno waxaan dhahnaa who is Ahmed. Ahmed waa kuma. ama who is she ayadu waa kuma. who is Aisha waa kuma. who am I anigu waa kuma. kulli cashirkeen xiyaan ku baran doonaa insha Allah dula idmo. who is Ahmed. Ahmed waa kuma. Ahmed is a taxi driver. Ahmed is a taxi driver. Ahmed waa taksiile. Ahmed is a taxi driver. Ahmed waa taksiile. This is his car. This is his car. kani waa gaarigiisa. okay, his ma xasuustaan cashirkeeni toddobaad qaybtiisa koowaad possessive adjective. his waa possessive adjective. waxa uu ka hadlaa shay lahaanshihiisa. af Soomaali ahaan wuxuu noqonaa this is his car. kani waa gaarigiisa. this is his car. kani waa gaarigiisa. okay, waxaan rabnaa marka kani waa gaarigiisa inaan u bedelano possessive s oo af Soomaali ahaan aan ka rabno inuu noqdo kani waa gaariga Axmed. kani waa gaariga Axmed. waa kan marka this kani is oo ah verb to be ficil ahaansha oo singular noun. Ahmed's car. this is Ahmed's car. estan waxay ka dhigan tahay muxuu ahaa ficil lahaansho oo ah gaarigan inuu leeyahay Axmed. this is Ahmed's car. kani waa gaariga Axmed. whose car is this. gaarigan yaa iska leh.
whose car is this gaarigani yaa iska leh whose waa tan waxay ka dhigan tahay markaan weydiinayno asaga wuxuu leeyahay ama iyada waxay leedahay ama noolahan caqliga lahayn oo it ah ama noolaha sida sabuurad iyo qalin iyo wix lamid ah markaan tilmaamayno waxay leeyihiin waxaan isticmaalaynaa whose isticmaalna markaan weydiinayno waxay leeyihiin waa weydiismo whose car is this gaarigan yaa iska leh whose car is this gaarigan yaa iska leh jawaabtaadu waxay noqon kartaa this is Ahmed's car this is Ahmed's car kani waa gaariga Ahmed okay that is Sophia that kaasi is verb to be oo singular noun oo ficil ahaansho ah Sophia oo magac gabar that is Sophia taasi waa Safiyo ama gabar Sophia la dhaho that is kaasi waa her bicycle that is her bicycle kaasi waa baaskiilkeeda ama bashkuleetigeeda saa u taqaanaan bicycle waa baaskiil her oo ah waxeeda marka halkan waxaan ku haysanaa possessive adjective oo ah waxaan kaga soo hadalnay cashirkeena toddobaad qaybtiisa koowaad possessive adjective kani waa baaskiilkeeda marka waxaan rabnaa inaan dhahno baaskiilkan Safiya iska leh ama kani waa Safiya baaskiilkeeda kani waa Safiya baaskiilkeeda anagoo muxuu ah her meesha ka tuurayna oo ka dhiganayno possessive s waxaan dhahaynaa that is Sophia's bicycle istan waa marka ficil lahaansho baaskiilkaas inay Sophia leeda aan ku qeexayno waxaan rajaynaynaa fahantiin isla soconno that is her bicycle kaasi waa baaskiilkeeda halkan waxaa ku haysanaa that is Sophia's bicycle way kala duwan tahay af Soomaali ahaan kani waa baaskiilkeeda kaas halkan waxaan ku haysanaa kaasi waa baaskiilka Safiyo waa weli waxaan dhexda kaga sii jirnaa inaan ka hadalno ficilkii lahaanshaha ahaa waxaan jeclaa ama rajeynaa insha Allah inay la socotaan si fiican u fahansantihiin u fahmaysaan these kuwani are waa verb to be ama ficil ahaansho oo jamac ah oo plural ah children caruur these are children kuwani waa caruur these are children kuwani waa caruur these kuwani are waa their dolls dolls waa macna ahaan waa bombale waa muxuu ahaa waxaan caruurtana ku ciyaaraan sidii dadka camal u samaysan ama ayagoo caruur ahaan u samaysan way jiraan ayagoo dadweyne ahaan u samaysan way jiraan laakiin caruurta yar ku ciyaaro dolls la bombale these are dolls their dolls kani waa kuwani waa bombalayaashooda marka waxaan rabnaa inaan dhahno kuwani waa bombalayaasha caruurta aan u bedelano possessive s waxaan dhahaynaa these kuwani are waa the children's dolls these are the children's dolls kuwani waa bombalaha caruurta kuwani waa bombalayaasha caruurta estan wuxuu ka dhigan yahay ficil lahaanshahaas oo ku saabsan bombalayaashan inay caruurta leeyihiin af Soomaali ahaan waxay noqonaysaa kuwani waa bombalayaasha caruurta these are the children's dolls kuwani waa bombalayaasha caruurta halkan waxaa ku haysanaa kuwani waa bombalayaashooda these are their dolls waa possessive adjective halkan waa possessive s okay those kuwaasi are waa girls gabdho those are girls kuwaasi waa gabdho those are their shoes waa kabooyin laakiin hal kab hadduu yahay waa shoe estaana ka qarinaysaa meesha shoe ay ku noqonaysaa shoe laakiin waa jamac shoes waa kabooyin those are their shoes kuwaasi waa kabayaashooda okay marka dhan halkan waa possessive adjective
waxaan rabnaa possessive s inaan ka dhigano oo ah kabahani gabdhaha iska leh. kabahani ama kabayaashani gabdhaha iska leh. These kuwani are girls shoes. kuwani waa kabayaasha gabdhaha. marka xasuusno halkan st kuma darsanino calaamad yareed bis oo muxuu ahaa calaamadan xariiqmada bis ku darsanay. calaamada yar xariiqmada ku darsanay oo ay naftirkeedu waxay ka dhigantaa ama ka turjumaysaa shay lahaanshihiisa oo ah kabayaashan gabdhaha leeyihiin. waayo s ugu darsan weyno calaamadan ugu darsanay maxaa yeelay girls waa jamac oo ah s u dambeyso. s waa plural noun maadaama halkan waxaan ku soo sheegnay hadduu nounka uu ku dhammaanayo jamac oo ah s ama es s kala gadaal uma baahnin kaliya waxaan u baahanaa calaamad yar oo fikta ah inaan ku darsano. taasina waxay inaga turjumaysaa lahaansho ah kabayaashani gabdhaha iska leh. halkan s kaga soo halka s ku haysanaa halka s ku haysanaa halka s ku haysanaa maxaa yeelay s uma wada dambeeyaan laakiin halkan s u dambeyso girls waa jamac. waxaan dhahaynaa these are girls shoes. kuwani waa kabayaasha gabdhaha. waxaa fila inaad fahanteen oo si fiican u dhuuxdeen. hadda muxuu ahaa cashirkeena xiga waxaan si fiican ugu sii faahfaahin doonaa ama tusaalooyin badan oo soo qaadan doonaa anagoo isticmaalayna whose and who saa si fiican usii fahanno insha allah. intaa cashirkaas ku kulmayno waxaa idinkaga tegay khayr iyo baraari barawaaqo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.